maamulayaasha Yuhuudda ayaa la sheegay inay masjid taariikh weyn leh oo ku yaala dhulka la haysto ee Falastiin ka dhigeen dhisme lagu caweeyo sida waxa sheegay saraakiil ka tirsan muslimiinta deegaanka. shirkad Yuhuudi oo gacan saar la leh dawladda hoose ee deegaanka Safate waqooyiga Falastiin ayaa la sheegay inay masjidka al-Xaraam oo la dhisay qarnigii 13aad ka dhigtay baar iyo hool weyn oo lagu dhigo xafladaha arooska. xogahayaha hay'adda Islaamiga ee samafalka Falastiin Sheikh Khayr Taabir ayaa sheegay inuu ka argagaxay markii uu arkay burburka loo geystay gudaha masjidka qadiimiga ee al-Xaraam. Sheikh Khayr Taabir oo la hadlay wargeyska Al-Qudus Al-Carabiya xaruntiisa dhexe ee ku taala magaalada London ayaa sheegay inuu sanado ka hor u gal dacwadeed u gudbiyay maxkamadda Sanadin ee Yuhuudda kana codsaday in hay'adda khayriga lagu soo wareejiyo masjidka balse aysan maxkamaddu wali xukun go'aan gaarin. madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa kulan la qaatay madaxda shirkadda DDB World oo hogaaminayo maamulaha shirkadaas Suldaan Axmed bin Suleymaan. madaxweynaha ayaa waxaa kulankan ku weheliyay wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Maxamed Cabdi Cismaan Minajiir iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo maalgashiga Cabdullaahi Cabdi Xirsi, wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo garoomada Xuseen Cismaan Lugatuur Gabiley iyo saraakiil ka tirsan madaxtooyada maamulka Puntland. kulankan ayaa waxaa looga wada hadlay dhismaha iyo ballaarinta dekedda magaalada Boosaaso, dardargelinta hawlaha shaqo ee dekedda iyo kamira dhalinta heshiisyadii horey loo galay ee bandhiga uu ahaa mashruuca dekedda magaalada Boosaaso.